sawirka qaybta sare idinkaga muuqdo waa maabka ama qariirada qaaradda Afrika. Dabcan Soomaaliyana way ka mid tahay dalalka ka tirsan ama dalalka ka mid ah qaaradda Afrika. Kaale macluumaad xiiso badan ka ogow maabka ama qariirada qaaradda Afrika. Qaaradan Afrika aan ku noolnahay waxa ugu dhul weyn dhammaan 54 dal ee qaaradan ay ka kooban tahay oo si buuxda loo aqoonsan yahay dalka Algeria. Algeria waa dalka ugu dhulka weyn guud ahaan 54 dal ee ay qaaradan ka kooban tahay. Markii aan eegno dalka ugu yar qaaradda Afrika waa dalka Seychelles. يعني dalkan waa dal jasiirad ah waxaan la isdhihi karaa juqraafi ahaan si ayuu ugu dhow yahay dalkeena Soomaaliya. Dalkan wuxuu ku yaalaa badweynta Indian Ocean-ka waana dalka ugu dhulka yar guud ahaan dalalka ka mid ah qaaradan Afrika. Haddii aan ka hadalno xagga taajirnimada dalka ugu hodansan guud ahaan dalalka ku yaala qaaradda Afrika waa dalka Nigeria. Nigeria hodantinimadan waxa u horseeda ayaa la isdhihi karaa waa dalka ugu horeeya ee xagga soo saaritaanka saliidda iyo weliba gaaska guud ahaan dalalka ku yaala qaaradda Afrika. Dabcan Nigeria iyadoo hadda hodantinimadan lagu sheegayo haddana dalkeeda waxaa laga helaa dad aad faqri u ah sababtoo ah lacagta laga helo saliidan iyo gaaskan la soo saaro dad gooni ayay si gooni jaabtooda ugu dhacdaa oo dadka inta badan way ka gaajiysan yihiin lacagta laga helo ama hantida laga sameeyo saliidda iyo weliba gaaska dalkan. Haddii aan eegno dhanka faqriga Burundi waa dalka ugu faqrisan guud ahaan dalalka ku yaala qaaradda Afrika. yacni dalkan GDP-giisa waxaa lagu qiyaasaa $546 guud ahaan sanadkii. yacni GDP-giisa u fahdid dakhliga shakhsiyadeed ee qof walba sanadkii ku soo hagaagi kara ayaa laga hadlayaa. yacni qof walba oo dalkaas ku nool marka loo fiiriyo GDP-ga ama hantida dalkaas taalo waxaa lagu qiimeeyay in qof walba uu sameyn karo sanadkii $546. yacni baaday haddii aan u qabino ama si maalinlaha haddii aan u qabino lacagtaas si sanadlaha loo qiimeeyay waxay noqonaysaa in qofkiiba uu heli karo $0.6 senti. taasoo micnaheedu uu yahay in qofka ku nool dalka Burundi maalin kasta uu sameyn karo wax ka yar $1. taasoo ku cadeynaysa heerka faqriga ee ka jiro dalkaas. Haddii aan ka hadalno xagga cimilada qaaradda Afrika dalka ugu cimilada kulul waxaa lagu sheegaa inuu yahay dalka Mali. Diiwaan la diiwaangeliyay ayaa waxaa lagu sheegay in dalka Mali cimilada ugu sareeya ee laga diiwaangeliyay inuu noqday cimilo gaaraya ilaa 48 digrii. yacni taas oo ka dhigtay in diiwaanka lagu daro in Mali ay tahay dalka ugu sareeya xagga cimilada la diiwaangeliyay ee guud ahaan dalalka ku yaala qaaradda Afrika. yacni dalkan wuxuu ku yaalaa juqraafi aad u kulul oo wuxuu ku yaalaa saxaraha waqooyi ee qaaradda Afrika. Haddii aan ka hadalno cimilada qabow ee qaaradan laga diiwaangeliyay dalka ugu cimilada qabow waa dalka loo yaqaan Lesotho. waa dal aad u yar oo intiisa badanba ku hareeraysan dalka South Africa. dalkan marar qaar waxaa la soo sheegaa in barafku uu ka da'o taasoo ka dhigtay in uu yahay dalka ugu qabow guud ahaan dalalka ka mid ka ah qaaradan Afrika aan ku noolahay. haddii aan ka hadalno dhanka webiyada webiga ugu weyn ee qaaradan ku yaal webiga Nile ama River Nile qofba si uu u yaqaano wadanka uu intiisa badanna marama ama wadanka la dhihi karo wuxuu haystaa webiga ugu weyn qaaradan waa dalka Masar. yacni inta badan webigan aan ku soo sheegay ee Nile wuxuu